بسم الله الحمد لله. مدعي هو حسن حاج حنفي حاج عبد السلام وإذا كان هذا مجرد مقدشو ودها شعبك مسلمين عالمك عالمك ورجيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بيد عاصمات ومتجبود في عام لبدي بشيء أغسطس لبدي كنا في طبعا كينيا سبهم كل جعان تيجون لجين يجوا يجي markii ugu horeysay meel la yiraahdo Bangani Police Station oo xaafada isli laga maamulo ama degmada Kamakunja la yiraahdo magaalada Nairobi. Bangani Police Station saddex habeen ayaan bariyay. Habeenkii waxa iga daba yimid reerkayaga oo waalidiintayada ayaa iga daba yimaado halka deganaa. Ninkii OCS-ka ama taliyaha saldhigu waxay ka meel dhigeen inuu isii daayo. Hooyadu waxay filaneysay in wiilkeeda lagu dari doono laakiin maynan dhicin. Wuxuu weydiiyey su'aalo dhowr ah. Xilligaas ka hor waxaa la weeraray meel la yiraahdo Integration oo injaayiintu weerareen injaayiinta Soomaaliyeed iyo meel la yiraahdo Lamu oo isla habeenkii ku xigay ay weerareen injaayiintu. Waxaa uu weydiiyey inaan ka qayb galay dagaalkii Integration. waxaan ku horay meel la dhahayo in Kenya ay ku taalo saxaafadun baan ka maqlay. meel ay iga jirtana ma helo mana aqaana mana ka qayb galin. wuxuu weydiiyey Lamu weerarkii ka dhacay inaan ka qayb galay in kale. waxaan ku horay Lamu ayaduna waa la mid ma aqaan meesha ay ku taalo laakiin waan garanayaa in ay tahay dhul Kenya. dabeeto wuxuu weydiiyey Garissa weerar ka dhacay. waxaan ku horay Garissa safar aan waqooyi bari Kenya ugu sii socdo ama ugu soo socdo mooye Soomaalitaankeeda oo shaqdaxa ahayd iyo sii socodkeeda duhur ahayd mooye in kale maana soo marin ama kubadeen koob shaaxta kama cabin. dabeeto waxa uu igu yiri inta badan ka soo dareeray sida CID-ga ama qorada Criminal Investigation Department leeyahay qaybta baarista dambiyada waaweyn waxay ku qoreen sida inaan meelaha soo ka soo dareersay haddii aynan dhicina waxa weeyaan maxaan ku raadayay sheegay waa lagu xalinayaa. bari subaxna maamadii waxa uu ku yiri aniga gurigaada ku keenayo baabuurkayga ayaan soo saaraya oo xataa baabuur police ma soo saaray baabuurkayga khaaska ah ayaan soo saaraya. hooyadu way ku qanci weysay. dabeeto waxay ka dalbatay in 10 saac hadii la gaaro xitaa aniga ku keenayo caawiyo wiilku xabsiga bariyeen laakiin wuu ka diiday oo waxa uu ku yiri ma suuroobeyso in hadda aan ku siiyo nimanka keensaday waa niman noocaas oo CID ah waa in ayaga aan caawa u tagaa ka soo dhaadhiciya deesmada wiilkan ayaa ku keenan doona maalinkaas sabti ay ahayd. dabadeeto uu ka sii tagay meeshii ayaan nagu sii xiranay maxaabiistii kalaba wadanka u dhalatay Kenya ahay oo meel kala duwan oo magaalada laga soo kala qabtay. markay taas dhacday waa laga waday xarun ATBU ay leeyihiin ayaa leeyahay oo Kenya National Hospital isbitaalka qaranka Kenya oo ka soo horjeeda. dabeeto markii la geeyay baaris ayaa meeshii sharciga dib loo baaray sharciga uu saxsanaaday wixii dambiyada la waayay magaca la raadinayo Xasan Xaaji Xanafi inuu yahay la sheegay in aan la sheegay in muddo ayaa meesha lagu waayay 5 bilood marba xabsi qarsoon la geeyay. bishii December inta maalinkii 6 ay ahayd ayaa la yimid wasiirkii amniga qaranka waxay u yeereen xiriirka Kenya dowladda ayaa yimid taliye booliska in la yiraahdo Suuriye oo hay'adda marsugida Soomaaliya haysto in la yiraahdo Cabdiraxmaan Bayle oo ay wasaaradda arrimaha dibadda mas'uulka ah in la yiraahdo Maxamed Cali Nuur America oo asana safiir ka ahaan jiray dalka Kenya. waxa iyo ninka la yiraahdo Nicholas Kay oo hadda la bedelo go'aanka midowga u qaabilsan Soomaaliya. dabeeto iyo qoladii CID waa team booliska David Kimayo la dhahay waxay isla qaateen in la wareejiyo Soomaaliya. dowladnimadii oo hadda hay'ad ayaa la sheegay in Soomaaliya la wareejiyo doono 6 saac ama 12 iyo 30 daqiiqo oo habeenimo ayaana hurday qolkii aan ku jiro kaliya ahaa la yimid waa la kacshay. ninkii meesha joogay oo furahayna wuxuu wargelisay in alaabteeda ay xidho haddii keenana ay yihiin ragga haddana irabo meel kalena ay ii wareejinayaan. waana soo tagnay
waxaan kula baawarku waa laysoo dhexir waa laysoo gacmo xiray nin Soomaali ah oo sirdoonka Kenya kamid ah oo reer Gaarisa ah ayaa baawarka waday nin kale oo asaguna la yiraahdo Alex oo la socda sayna ugu jiray laba baawar oo yar ayaa lagu soo qaaday sidii ayaa marka garoonka lagu keenay saldhig booliis garoonka yaala lagu wareejiyay saldhigii ayaa iga soo sagaalkii iyo bar laga soo waday diyaarad khaas ayaa la soo saaray 11 daqiiqo waxaan ka soo degay jida caalamiga magaalada Muqdisho waxaa la geeyay sarta Abarqadiija oo xarun u ahayd hay'adda shahaadada waxaa la geliyay godka hoose Abarqadiija oo markaas laga bixiyay shacabka daahir aways oo ku xirnay meesha ayaan ku jiray 12 June ayaa la wareejiyay xabsiga madaxtooyada ku yaalo meeshaas ay ku qabay labadii bishan March ama bisha saddexaad 2016 kana waxaa la soo raadiyay xabsiga dhexe magaalada Muqdisho meesha ayaan joogay waxaa la yiraahdaa gobolka iyadoo halkaas ay ka soo hormuuqdeen in Xasan Cali Nuur Shuute oo darajada koowaad ee maxkamadda ciidamada qaranka mas'uulka ah iyo laba nin oo la socotay halka ayaa maxkamadeeyay dambiyo dhowr ayaa lagu eedeeyay waxaa dambiyadaas ugu waaweynaa inaan xarakad al-shabaab mujaahidiin kamid ahaa go-aankii maxkamadda ay ku dhawaaqdeen waxa ay dib toogashaa jeeba ay igula soo ordeen jeebadii ayaa maxaan ku raadayay lagu xidhay sidii ayaa lagu soo raadiyay xabsiga dhexe magaalada